بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي مالين وناكسن اسكسونا قد وناكسن أصحابتي قاليga maanta waxaan noo wada muufa aad u jilicsan insha Allah bidnillaahi kariim marka hadda waxaan diyaarsanaynaa muufadeeni qaabka iskugu qasqasan lahayd iyo waxyaabaha aan ku qasan lahaa ayaan idinla wadaagayaa insha Allah bidnillaahi kariim hadda halkan waxaan ku shubtay waa burka aniga hadda koob iyo waxba kuma qiyaasayo indhaha ayaan ka aqaanaa intii nagu filan oo cabirkeena ah oo familka ku filan insha Allah bidnillaahi kariim marka sidaas ayuun baa ugu shushubanayaa hadduu Ilaahay yiraahdo hadda burka aan ku shubo wax yar ayaa ku jiray bacda markii hore oo dhamaad ayuu sii ahaa kaas marka hadda kiiloogan kale ayaan furayaa insha Allah waxoogaa ayaan kaga kordhisanayaa oon ku dul darsanayaa intii hore waa in yar way yareed marka waxoogaa ayaan ku dul darsanayaa insha Allah bidnillaahi kariim waan qiyaasanayaa kabacdina waxaan kaloo ku darsanayaa boorashka caruurta loo kariyo ama dadka waaweynba ay cunaan boorashkaas ayaa in yar kaga darsanayaa isagana insha Allah bidnillaahi kariim burka keligiis ayaa nacayaa marka xoogaa cajiinkaas ayaan ugaga dhawaanayaa boorashka waa qamadi marka boorashkaas ayaa in yar kaga darsanayaa waxaan kaloo ku darsanayaa qaando sokor ah waxaan ku darsaday qaando sokor haddana waxaan ku darsanayaa in yar oo cusbo ah oo qiyaas ah insha Allah intaas ayaan ku darsanayaa oo qiyaasta ah cusbada waxaan kaloo ku darsan doonaa insha Allah bidnillaahi kariim qamiiriso ama fixiso ama leebato hadba sidaad u taqaano tabudada ah ayaan ku darsanayaa insha Allah iyadana iyo baking powder wax yar oo baking powder ah insha Allah marka hadda waxaan ku darsanaynaa qamiirka laftirkiis mid furan ayuu ahaa oo haaf yara ku jira marka in yar intaas waan ku darsanaa in yar ayaan ku kordhisanayaa oo kale oo qamiir ah insha Allah marka hadda in yar oo kale ayaan kaga kordhisanayaa insha Allah bidnillaahi kariim xabadii kale ayaa in yar kaga dul darsanayaa sidaad aragtaanba aniga hadda qamiirka iyo burka iyo ma cabirin yacni qiyaasunba uga shushubtay tanna waa baking powder kana in yar qaandada afkeeda hore ah ayaan ugu cabiranayaa iyada insha Allah marka baking waxay ka saacidaysaa muufadaada muufa jilicsan oo bushbush ah sida doolshada kala arag ah ayay ku noqonaysaa insha Allah taas ayay ka saacidinaysaa baking powder-ka hadda intaas ayaan isku soo darsanay waxaan kaloo ku qasanayaa koob caano oo kulul oo yara diiran kuleel xoog ma aha laakiin wuu yara diiran yahay wax yar koobkaas caanaha iyo koob biyo oo isagana yara diiran wax yar ayaan ku qasanayaa insha Allah haddii ugu yara adkaadana waan ku darsan doonaa biyaha insha Allah bidnillaahi kariim marka asxaabteeda muhiimaddu waa sida aan u qasayo in aan tusiyo marka hore intaas ayaan isku qasayaa insha Allah bidnillaahi kariim waxaan ku walaaqayaa hadda gacanta mulqaacada ayaan marka hore ku walaaqayaa kadib marka isdhex gashana gacanta ayaan ula tagayaa insha Allah bidnillaahi kariim oo ii fududaanaysaa insha Allah marka hore qaandada ayaan isku dhex gelgelinayaa maasha Allah muufadeena sida ku soo baxdana waan arki doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah marka hadda waan qasanaynaa sidaas ayaan isku dhex gelinayaa tartiibteeda qaandada ayaan ku qasayaa insha Allah kadibna markaan qaandada isku dhex geliyo oo inay isdhex gasho burkii aan arko ayaan gacanta ula tagi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo daawasho wacan hadda sidaad aragtaan gacantii ayaan ula tagay si fiican ayaan isku qasayaa insha Allah markaan dhameeyo ayaan isku soo noqon doonaa oo aan qasto insha Allah bidnillaahi asxaabteeda waan qasanay muufadeeni waa taas waa noo diyaar hadda waxaan sugaynaa intay nooga soo faxayso insha Allah waa daboolanaynaa noqod wanaagsan maasha Allah way noo soo faxday haddana birteeni ayaan dabka saaranaynaa insha Allah waxaan sugaynaa intay nooga soo kululaanayso muufadeena wax saliid ah kuma dubanayno wax saliid la dhaho laguma daraayo insha Allah bidnillaahi kariim yacni laguma dubaayo lama marmarinayo iyada keligeed ayaa la dubayaa insha Allah hadda xabadii ugu horeysay ayaan saaranay sidaas ayaan ugu kala bixbixinayaa hadduu Ilaahay yiraahdo u kala bixbixinayaa kadibna waan daboolanaynaa kadib hoosta markay kasoo gaduudato dhanka kale ayaan haddana u gadisan doonaa insha Allah bidnillaahi kariim isla socod wanaagsan
haddana xabadeynii labaad ayaan maraynaa insha allah bidnillaahi kariim. hadda hoosta ay kasoo gaduudatay waan gedisanaynaa insha allah. sidaas ayay hoosteeda kusoo baxday. xoogaa hoos ayaan ugu celcelinayaa kadibna waan daboolanayaa insha allah bidnillaahi kariim si ay ugu gaduudato iyadana. xabadba xabada ka dambeyso way kasii qurux badnaanaysaa maasha allah. buush jileec kaale iska aragaan ku dhahay, kuma dhibeyso caruurta, ma dhibeyso cunisteeda, adeeg kuma noqonayso. maasha allah tabaarakallah. sidaas ayaan kusoo dhameynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo. saas ayay u ekaanaysaa kor iyo hoosba. maasha allah wax saliida looma dhaweynayo, wax saliida lama marinayo. sidaas ayaa birta loo saarayaa, loo gedinayaa, loo gedinayaa. qaleelkeedaas ayaa lagu dubayaa. igama qabsanayso, igama dhageyso. dabkana waan u gaabiyey. dabka xoog ma aha, haddaa xoog ka dhigtid wuu kaa gubanaysaa. marka xoogaa si yaroo normaal ah ayaa dabka uga dhigay oo si fiican ay ugu bislaato igana gubanin. maasha allah tabaarakallah. asxaabteeda qaaliga muufadeena sidaas ayay weli noogu socotaa insha allah bidnillaahi kariim. sidaas quruxda badan ayay u eg tahay maasha allah tabaarakallah. saas ayay usoo fuureysaa, qurux u tahay maasha allah. waxaan ku iri kaal iska arag jileec. keligeed waa cuni kartaa xitaa haddaad doontid. koobkaaga shaaha inta soo qabsatid kuma dhibeyso maasha allah. asxaabteeda markaan soo dhameeyo ayaan isku soo noqon doonaa insha allah bidnillaahi kariim. tabaarakallah. halkan waxaan ku diyaarsanaynaa maraqeenii ama suqaarkeenii aan ku cuni lahayn, kaasoo aan ka sameeyey digaag insha allah. ayu qudaar oo dhan ayaa ku jirta. koosta ayaan ku daray maasha allah tabaarakallah. maraqaas quruxda badan ayaa nooga soo baxay insha allah bidnillaahi kariim. haddaad jecleysataanna waan idinla soo wadaagi doonaa qaabka aan u kariyey maraqaas kiibka ah ama digaaga ah ama chicken-ka ah, hadba sidaad u taqaano insha allah. aad ayuu u macaan yahay. hadduu alla idmana waan idinla soo wadaagi doonaa qaabkan u sameeyey hadduu ilaah yiraahdo. haddaad ka hesheen please like, share and comment. asxaabta nagu cusubna waxaan leenahay noo subscribe mar walba sidaan idin iraahno. gambaleelkana furta si aad uga mid noqotaan asxaabta nagu xiran. asxaabteeda qaaliga idinkana aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. maraqeenii waa kaasaa quruxda badan maasha allah. hadda ayaa dabka laga qaaday. asxaabteeda qaaliga ah muufadeenii waa taasaa. sidaas quruxda badan ayay noogu soo baxday ee aad indhihiina ku aragtaan iyadoo wax saliid ah lagu dubin maasha allah tabaarakallah. kaale iska arag waaye, waa jilicsan tahay. waxaan ku iri sidaan hore niigu sheegaba keligeed waa iska cuni kartaa. koobkaaga shaaha inta soo qaadato ayay waxaad rabtaa ku cuni kartaa. waa muufo aada u jilicsan maasha allah tabaarakallah. maraqeenina waa kaasaa. muufadeenina wataa sidaa quruxda badan. haddaad ka hesheen please like, share and comment. waana niiga mahad celinayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.